Assalaamu calaykum. Daawade muuqaalkeena waxaan kugula wadaagayaa sheekadii Soomaaliyeed ee garyaqaankii Inasan Weyne iyo sida ay ku caanbaxday. Berigii nolosheena Soomaaliyeed geela ku tiirsanayd ayaa nin geel jir ah hal geeliisii ka mid ahayd ka luntay. Hasha baadidoonkeeda iyo daba socodkeeda ayaa dheeraan jiray oo taranteeda ayaa la mid ahayd 100 geela. Keligeed hashu micno weyn ma laha haddii aanay waxay dhashay micno u yeelayn. Ninkaasi baadidoonka hashaas sibraar ayuu caano ugu shubtay, jiho loogu sheegay ayuu cagta saaray. Sida la sheegay berya ayuu ninkii hashii baadidoonkeeda ahaa oo uu marba uu tibaax iyo tilmaan ka helayay. Muddo ayuu marba beel ka dhex yaboohinayay, wax uu marba meel ku guulaba. Sannado kadib ayuu dul yimid geel loo sheegay inay hashu ku dhex jirto iyo reerkii wakhtiga dheer hashu maganta u ahayd. Waa goor barqo ah, geelii hashu ku jirtay ayuu soo dhex maray. Hashii ayuu isha ku dhuftay oo gartay. Hashu dhowr sannadood ayay baadi ahayd oo taran ayay yeelatay. Ninku tolkii ma dhex joogo, geelana cod si fudud ku bixisaa ma jirto. Intaasiba isaga kama maqna oo wuu ka warhayaa. Soomaalidu beryahaas waxa ay ka shirtay geela iyo arrimihiisa. Waxa ay isweydiisay su'aal odhanaysa: geela maxaa inooga xeer ah? Dood dheer kadib, waxa ay beelihii waagaasi ku heshiiyeen geelu habeen walba waa ninka u xoog roon iyo xerada uu ku jiro. Markii uu hashii indhaha saaray ayuu u yimid geela hashu ku jirto raggii lahaa. Waa wiil barbaar ah iyo aabihii oo geed fadhiya. Salaan kadib la is-haybsay, la is-waraysay. Ninkii baadidoonka ahaana muraadkiisii sheegay oo lamaankii is-dhalay uga warran arrinta uu socdo. Waxa uu ka sheekeeyay muddada dheer ee uu hasha daba joogay iyo inta uu ku jiray baafinta haybinteeda, hawsha socodka ka qabsatay iyo in uu uga yimid dhul dheer iyo waxyaabo la mid ah. Waxa ay ku yidhaahdeen hasha tilmaan oo astaamaheeda sheeg. Waxa uu dhigdhigay hasha sumadeedii iyo baadisooceedii. Waxa uu sheegay in uu dir soocayo oo uu hasha taranteeda farta ku fiiqayo. Waxa uu hadal ku soo gebagabeeyay: geela aan soo dhex maray hashayda iyo taranteeduba waa ka go'i karaan. Bowda rag maalinba midba qaawan, hasha iyo taranteedaba kama maarmo. Waxa ay xasuusiyeen xeerka geela ka yaal, waxaanay si qalafsan ugu jawaabeen: afka boodhka ka qarso. Ninkii baadidoonka ahi waxa uu warkiisa hayaa in uu reerka la joogo nin inanlayaal ah oo reerka gabadh ka qaba. Wiil yar oo aan waxba ka warhayn ayuu la kulmay. Kadib markii uu labadii is-dhalay faro madhan kala kulmay, waxa uu weydiiyey meesha uu ninka reerka la yaalaa joogo. Wiilkii waxa uu tilmaamay inuu inanlayaalku fadhiyo geed aan kaba fogeyn. Ninkii ayuu dul yimi. Salaan kadib muraadkiisii ayuu abbaaray. Waxa uu u sheegay in uu dal dheer ka yimid. Waxa uu u raaciyay hasha iyo arrinkeeda. Waxa uu uga warramay in sodogii iyo seedigii isku raaceen in aanu maanta halkan geel ka kaxaynayn, waayo baadi kugu raagtay in aad leedahay ayaad moodaa. Ninkii inanlayaalka ahaa waxa uu u sheegay ninkii socotada ahaa in ay u fududahay inuu sodogii iyo seedigii u soo fadhiisiyo, kadibna uu u garnaqo. Isaga oo hasha warkeeda haya, lamaankii is-dhalay ayuu cid u diray. Wuu soo fadhiisiyay. Ninkii reerka xididka la ahaa waxa la odhan jiray Faarax Sanweyne. Waxa uu ninkii hasha lahaa ugu jawaab celiyay: adiga iyo ragga aan xididka la ahay waan idin garnaqayaa ee soo fadhiiso. Lamaankii is-dhalay ee uu xididka la ahaa ayuu u yeedhay. Waxa uu ku yidhi: garnaqsi u soo fadhiista. Inasan Weyne waa nin goostay inuu raganimadiisa ilaashado. Hasha iyo taranteeda waa ka warhayaa. Kadib markii uu ninkii baadidoonka ahaa si run ah uga jawaabay su'aalo uu ka weydiiyay hasha, ayuu labadii nin ee midna sodoga u ahaa midna seediga u ahaa ku yidhi: gari Ilaahay bay taqaan, sodog ma taqaan, seedina ma taqaan ee ninka hasha iyo taranteeda u soo sooca. Lamaankii is-dhalay ma ay filayn dhawaaqa iyo hadalka cad ee ninka gabadha ka qaba ka soo yeedhay. Go'a ayaa boodhka laga tuntay. Lamaankii is-dhalay inta ay kaceen ayay hashii iyo taranteediiba soo sooceen. Wax yar kadib waxa geedkii ku soo laabtay ninkii baadidoonka ahaa oo hashii iyo 5 ilaa 6 geel ah oo taranteedii dabada ka wada. Ninkii baadidoonka ahaa waxa uu istusay in aanu sida
sidaa isaga tegin. Ninkii garta naqay oo weli geedkii fadhiya ayuu u yimid. Waxa uu ku yidhi, warkaaga waan hayaa inaad reerka xidid la tahay. Anigu maan filayn, xididkaaguna may filayn go'aanka aad qaadatay. Laba kala dooro, ma hal baan ku siiyaa mise hal baan ku idhaahdaa? Inalayaalkii waxa uu ku jawaabay, geelaaga kaxayso, inaad hal i siiso waxa aan ka doorbidayaa in aad hal i tidhaahdo. Waxaa la sheegay in ninkii baadidoonka ahaa wixii maalintaas ka dambeeyay caadaystay in uu tago gole kasta oo xeer-beegti fadhido oo cid loogu garnaqayo. Waxa uu marka hore dhagaha u raaricin jiray sida ay wax u dhacayaan iyo sida wax laysu tusayo. Markii ay murugto ee laysu maaro waayo, muranna goobta yimaado, ayuu gacanta taagi jiray. Markaas ayuu odhan jiray, garta aad naqaysaan go'aankeedu waa sidaas. Marka lala garan waayo, ayuu odhan jiray, sidaa aan idhi ayuunbay ku dhan tahay. Haddii aad doontaanna Inasan Weyne u geeya. Inasan Weyne go'aanka iyo gartii uu naqay ee raggii uu xididka la ahaa iyo ninkii hasha ka luntay isku soo geed fadhiisteen ayuu mahadiyey, magiciisana meel walba kaga dhacay. Waxaa caado iska noqotay in geed kasta oo laysugu yimaado iyo gar kasta oo furanta marka ay kululaato ee laysmari waayo halhays laga dhigto, in la yidhaahdo gartaasi halkaas ay ku gororaysaa waa sidaas iyo sidaas. Haddii aad doontaanna Inasan Weyne u geeya. Arrinta Inasan Weyne waxayna tusinaysaa daawade halhayska yidhaahda, raganimadu meel cidhiidhiyoon baa lagala baxaa. Waayo ninkaasi waxa uu u badheedhay in uu sodogii garta ku cad ku naqo, ta alle mooye tu kalena ma uu xeerin. Wasalaamu calaykum.